السلام عليكم حلمان بار. عليكم السلام ورحمة. حلمان بار دقاندي سناق برياد كسو جيدي حالدoodu ma fiicna warar baysa soo taraya hore waxaad u ogay saraakiil ciidan iyo 800 oo askari wateen inay ka baxeen waxaad kaloo maqashay maalintii shalay ahayd ay ka baxeen ciidamo kale uu hogaaminayo taliyii muddada badan ilaa 790 ilaa 2019 oo maanta ah ciidanka haystay ciidamadiisii xagan kale waad ka la socotaa qulqulatooyinka u dambeeyay ee ka dhacay taliyaha ciidanka militariga Soomaaliland General Tani oo maanta hadlaysna waxa uu sheegay mar arinta wax laga weydiiyay in culays ka degay oo kharash iyo dhigbax ay ku jireen iminkana uu maxay tahay tagitaanka ciidamadii u dambeeyay sanaag bari ay tahay culays Soomaaliland ka degay idinku waxaad tihiin xildhibaan baar xildhibaanadii golaha baarlamaanka Soomaaliland ku jiray ka soo jeeday deegaanada taliyuhu ku sheegay culays ka degay sida la ajligeed maadaama idinku golihii baarlamaanka iyo wakiilada ka tirsan tihiin sida taliyuhu sheegay culayska ma ku sii joogaysaan oo culayska uu sheegay ma ku sii haynaysaan mise idinkuna halka saraakiisha iyo ciidanku maray baa mari doonta annagu horta dalka yagi baanu joognaayo waanu joogaynaa Nuux Tani hadalkiisuna waxa laaliyo wuxuu noo dhimayo ma jiro isaga wax isyeelay oo Soomaaliland buu wax yeelay mas'uuliyadiisii baa dayacantay oo dabeedna mas'uuliyadiisii markay dayacantay ayuu dhul isku maxay ahayd ay buura korkoraya Soomaalilandna waxbuu dhimayaa oo de wax buu laga yaabaa inuu u jaro maxay tahay waxtar buu isleeyahay laakiin anigu waxaan u arkaa inuu wax yeelay nuusna anagu de lama joogin dalka yadii baanu joognaa waanu joogi doonaa madaxweynaha aanu eegaynaa bal hadda talaabada uu qaado inuu de kula socdo hadalka taliyaha ciidanka iyo inuu ka madax banaan yahay oo maxay ahayd de isagu fikir kale ka heli doono ayaanu eegi doonaa waa tahay labada maalmood oo u dambeeyay dhacdooyinkan cusub intay dhacayeen taageerayaasha maxay tahay khaasatan Hargeysa ku dhaqan ee taabacsan xukuumadda talada haysa madaxweyne Biixi baraha bulshada sida Twitter-ka iyo Facebook waxay aad ugu qaadaa dhigayeen inaan qaranka cid laga laaluushaynin kelmadaasi waxay soo noqnoqotaa kolka dhaqdhaqaaqiyo noocan ka dhacaan deegaanada Sanaag bari iyo Soolba seed u aragtaan idinku maadaama dadka idinku matalaysaan oo baarlamaankiin tihiin hadallada noocaas iyo ka jaranka sayidin la muuqdaan way iska hadal meel waaye hadalladaasi waa hadallo meel waaye weeye maxay ahayd cid la laaluushi jirayna ma jiraan maxay ahayd cid hadda laaluush u baahanina ma jiraan dadku buu wadaagay haddii dalku maxay ahayd cadaalad waayana nin waliba halkuu dan moodo buu iska mari doonaa dareen ahaan ciidamada tegay deegaanada Sanaag bari jabhadaha samaysmaya xaalku siduu yahay soolta weerarada hid aan ranka ee ku dhifo ka dhaqaaqda ay u geysanayaan jabhadaha gudaha dalka ka abuurmay ka xildhibaan ahaan maadaama iyaga deegaanka ka soo jeeda matasho seed u aragtaa baar yaa mas'uuliyadda leh yaa dibta dhigay yaa hawsheedii ka soo bixi waayay yaa maxay ahayd lagu qaadaya haddii ay maanta sharci ahaan noqoto yaa dalka googooyay yaa dadka maxay ahayd wax u qaybin waayay waxaasoo dhan waa la xisaabtamaya waa si fiican baa loo xisaabtamaya waa si wanaagsan ugu dambeyn xildhibaan Guri Cismaan Saalax oo ogeyd inuu 3 jeer difaaca Soomaaliland ku dhaawacmay xilligii riyaale tiraba 2 jeer la soo qaaday isagoo dhaawaca sidoo kale lugdan ka naafoobay shalay maruu hadlaya waxa uu sheegay cadaalad darrada inay ka midaysan yihiin ugana tageen Soomaaliland sidii caar uga tagay ka xildhibaan ahaan ma idin muuqata cadaalad darrada saraakiisha ciidan ee baxay ay sheegayaan waa dhibaatooyinka loo xidhigay weeye way noo muuqatay horena waa noogu muuqatay iminkana waa noogu muuqatay sababtoo ciidanku waa inuu wixii jiraba ka sinaadaa dhib iyo dheesba waxa ka darantaa wuxuu yidhi kuwa tagayna waa ku faraxsanahay kuwa kalena ha tageen hadday tagi waayaanna waanu eryeynaa anigu waxaan qabaa dee wax kalaa nalaa jira oo laantii baa laga noqday malaha annagaan war hayn kuwa tagi waaya idinkaa ka mid a la sheegayaa haddiiba ka waran uu tallaabada qaadaan saad u aragtaan xildhibaan
labana aanu joogin namana eri karo dalkana nagama leh qof buu ka yahay qof baanu ka nahay qabiil buu ka yahay qabiil baanu ka nahay haddii laga kala noqonayana waa la arag oo nin waliba qayb buu leeyahay oo dalka ugu badan baanuba leenahay annagu kuwan warkooda aan la socdaa waxyaabaha maxay ahayd ay ku tageen kuwii hore aan ogeyn waxay ku tageen nuux taani xaalkiisu waa wax qalano min biyaha qarsano marka dee ama Somaliland waa ka tashanaysaa dee ama way ku burburaysaa oo maalinba sida 100 askari u tagayaan ayay ku dhamaanaysaa